maanta waxaan doonaynaa inaan barnaamijkeena ku miisaanno xaaladda ka taagan Falastiin gaar ahaan Gaza. Waxaan doonaynaa inaan miisaanno yaa taageeray Falastiiniyiinta, yaa taageeray reer bani Israa'iil, yaa dhexdhexaad isu muujiyey. Yaa dhexdhexaad isu muujiyey marka aan leenahay waxaanu ognahay in ay yar tahay, aad ay u yar tahay qof adduunkan ku nool maanta oo dhexdhexaad ka ah xaaladda Falastiin. Waa qasab in qofka uu dhinac la jiraa sida dadku u badan yihiin, sababta oo ah khilaafkan waxa uu leeyahay wajiyo badan iyo dhinacyo kala duwan oo laga eegi karo. Mid waa dhinac siyaasadeed iyo xulufaysi, marna waa mid diineed oo waa islaam iyo kufri, mar waa isir oo waa carab iyo inta kale, mar waa ilbaxnimo kala duwan oo iska soo horjeeda, mar waa reer galbeed iyo reer bari. sidaas darteed ma badna in aad aragto qof adduunka ku nool oo dhexdhexaad ka ah arrinta Falastiin. Haddaba waxaanu eegaynaa kow yaa taageeray Falastiiniyiinta, kadibna waxaan eegi doonaa yaa ka soo horjeestay, kadibna waxaan eegi doonaa yaa dhexdhexaad isu muujiyey. haddii aan ka bilowno qaybta koowaad ee ah yaa taageeray Falastiiniyiinta, kow waxaan ka bilaabi karnaa waddanka Algeria. waddanka Algeria waxa uu uga hadla arrintaas si aan gambad lahayn, waxa uuna la saftay Falastiiniyiinta asaga oo aad u cambaareeyey dhanka reer bani Israa'iil. waddanka arrintiisa asagana aad u caddahay waa waddanka South Africa, maadaama waddankaasi gumaystihii soo haysay jiray iyo Israa'iil ay dhinacyo badan isaga mid yihiin, dad badanna ay ku tilmaamaan inayba isku mid yihiin. South Africa ayada oon ka labanlabayn ayay waxay la jirsatay Falastiiniyiinta, waxayna cambaaraysay reer bani Israa'iil. waddanka xiga oo arrintiisa la gamban asagana wuxuu ahay waddanka Qatar oo si toos ah ula saftay Falastiiniyiinta. waddanka afraad waa Turkiga oo markii koowaad isu muujiyey adiga inuu dhexdhexaad ka yahay arrintaas camal uga hadlay, haddana kadib laakiin si adag uga hadlay arrinta Gaza. waddanka Venezuela asaga warkiisa uu cad yahay, waxa uu la saftay Falastiiniyiinta. waxaa xiga Suuriya oo ayada qudheedu dhinac kale gumaad iyo xasuuq ka wada ayaa la safatay Falastiiniyiinta, waana arrin siyaasadeed arrintaas. Iiraan ayadana warkeedu waa cad yahay oo waxa ay la safteen Falastiiniyiinta, annagoo og Iiraan qudheedu dhibaatooyin ay meelo badan ka wado, laakiin siyaasad ahaan waxa ay si toosa ula safatay Falastiiniyiinta, ayadoo u muujisay xataa haddii arrintu sii adkaato laga yaabo inay gacan la soo gasho. Kuwait ayadana way cambaaraysatay reer bani Israa'iil, waxayna la jirsatay Falastiiniyiinta. Xisbullah warkeedu wuu cad yahay, ayaga waxay la jirsadeen Falastiiniyiinta ayagoo xataa ay gantaanle isweydaarsadeen xagga reer bani Israa'iil. Malaysia ayadana warkeedu wuu cad yahay, waxay la jirsatay Falastiiniyiinta. Uganda inkasta oo markii koowaad ay u muujisay inay dhexdhexaad ka tahay arrinta, laakiin kadib waxay si toosa u cambaaraysay waxa ka socda meesha, waxayna la jirsatay dhanka Falastiin. ayagoo aan ognahay ayadana Uganda waxyaabaha ay ka wadamo badan oo ay ka mid yihiin Soomaaliya. Xuutiyiinta Yemen ayagana way taageereen dhanka Falastiin. Oman ayadana taageero ayay u muujisay. Ciraaq ayadana sidoo kale Falastiiniyiinta ayay aad u taageertay. China waxaa la dhihi karaa wax uun u eg inay taageertay Falastiiniyiinta ayaa ka soo yeeray, inkastoo warkeeda uusan sida dadka kale u caddayn. haddana waxaan eegaynaa yaa si toosa ula jirsaday reer bani Israa'iil kana soo horjeestay Falastiiniyiinta. Maraykanka ayaa ugu horreeyey waddamada ugu horreeyey ee taageera reer bani Israa'iil. Maraykanku dheg jalaq uma siin waxyaabaha ka dhacay Gaza iyo waxyaabaha lamid ah, laakiin reer bani Israa'iil aad ayuu u taageeray, wuxuuna u keenay maraakiib dagaal iyo diyaarado iyo hubi noocyadiisa kala duwan, isagoo weligiisba taageeri jiray waddankaas. waxaa kale uu sameeyey brobaganda saa'id ah oo uu ku taageeray dhanka reer bani Israa'iil. sidoo kale wuxuu Maraykanku u soo diray dhankaas iyo reer bani Israa'iil xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, arrintaas oo ay sheegeen inay ugu muujinayaan reer bani Israa'iil inay garab taagan yihiin. waddanka xiga waa waddanka Ingiriiska oo asal ahaanba ah ninka keenay dhibaatada meesha ka socota, Israa'iilna dhulka ka siiyey halkaas. waxa uu si toosa ula jirsaday reer bani Israa'iil, sidoo kalena maraakiib dagaal ayuu u soo dhoweeyey xeebtooda, si adag ayuuna uga hadla dhanka Falastiiniyiinta. sidoo kale guud ahaan midowga reer Yurub waxay taageereen reer bani Israa'iil. hal ugama gaarno waddamadaas taageera reer bani Israa'iil, aad ayay u badan yihiin. waxaan dhihi karnaa reer galbeed oo dhan waxaa ka mid a Czech Republic, Belgium, Germany, Faransa, Greega, India oo ayaga naftirkooda muslim nacaybka lagu yaqaano, Italy, Japan, NATO guud ahaan, Poland, Spain, Ukraine, UN-ka, Canada iyo ironically Kenya oo aad ula jirsatay reer bani Israa'iil, si adagna uga hadasha dhanka reer Falastiin. haddaba waxaan eegaynaa yaa arrintaas inuu dhexdhexaad ka yahay isu muujiyey,
sida hore usoo sheegnay China marka lamana dhihi karo way taageertay waxaa la dhihi karaa wax uun taageero u eg ayay ka dhawaajisay sidoo kale Ruushka warkiisu ma cadda in Ruushka inkastoo hadalladiisa aan si daacad loo soo gudbinaynin waxaa jira warar iskhilaafsan oo ka imaanaya dhanka Ruushka oo markii hore inuu dhexdhexaad iska dhigay laakiin kadib xoogaa yara u muujiyay in Falastiiniyiinta taageero inkastoo warkaas uusan weli caddayn sidoo kale Turkiga markii hore waxay iska dhigtay inay dhexdhexaad tahay laakiin kadib xoogaa hadal fiican ayaa ka soo yeeray mid ugu cajiibka badan ayaa waxa ay tahay Masar oo ah waddan muslim ah ayna daris yihiin meesha dhibaatadu ka socoto carabna ah si jilicsan ayay arrintaas uga hadashay oo u eg inay dhexdhexaad yihiin sidoo kale Morocco ayadana si waxay uga hadashay aan la dhihi karo waxay u eg tahay dhexdhexaad inay ka yihiin arrintaas Urdun markii hore dhexdhexaad ayay iska dhigtay inkastoo dad jagooyin sare aan hayn ay taageereen Falastiiniyiinta Sacuudi Arabiya waxay uga hadashay si dhexdhexaad ah Imaaraadka waxaa la dhihi karaa si dhexdhexaad ah una dhow inay taageersan yihiin xagga reer Bani Israa'iil ayay uga hadleen arrintaas Indonesia Ghana iyo Nigeria ayagana waxa ay uga hadleen si adiga u eg inay arrintaas dhexdhexaad ka yihiin markii aan ka soo tagno arrinta dowladaha iyo sida ay u kala taageereen labada dhinac waxaa jira shakhsiyaad badan oo lagu tuhmayay inay yihiin dad wanaagsan laakiin markii dhibaatadan dhacday ka kacay wax aan la qiyaasi karin oo xumaan ah ma doonayo inaan hadda soo qaato magacyadooda laakiin waxaa jira dad Mareykanka jaga sare ka haya oo sheegay in dagaalkan uu yahay dagaal diimeed oo aan loo kala harin waxaa jira kuwa annaga nagu magac ah oo Soomaali sheegta oo ayagana si qaldan uga hadlay arrintaas dad caan ah ayaa jira oo isugu jira fanaaniin jilayaal dad saameyn leh oo aad ula jirsada dhankaas reer Bani Israa'iil waxaan ka xusi karnaa ninka muslimiinta aad u taageeri jireen waagii hore ee laga yaabay inaa sheekadiisa maqashay ee yiri Falastiiniyiinta cadaabta hala dhadhansiiyo waxaa ka mid ah jalaal weyn oo Hollywood ah oo asagana arrimahaas arrimo lamada sheegay waxaa cajiiba waxaa jira fanaaniin caan ah oo soo qaatay sawirro dad Falastiiniyiin ah ee la duqeeyay kadib yiri waa reer Bani Israa'iil la duqeeyay waana taageersannahay iyo arrimo lamid ah sidoo kale waxaa jira dad aan laga filanayn inay taageeri doonaan Falastiiniyiinta laakiin laga soo wariyay hadal taageero ah waan arki doonaa haddii aan barnaamij gaar ah ku soo qaadan karno arrintaas laakiin qaybtan hadda intaas ayaan ku ekeenaynaa